daawada arinta la yaab kale Ilaahay awoodiisa uu bini'aadamku ku tusay waxay tahay ninkan marka shilka uu galay kadib gawaaridii soo gurman lahayd dab qabsadeen. Assalaamu calaykum daawade, halkani waa xogta qarsoon. Muuqaalkani waxaan kaga hadli doonaa Lars Vilks. cabsi joogta ayuu ku noolaa ninka sameeyay sawir gacmeedka Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. waa uu geeriyooday ugu dambeyntii waliba waxa uu dhintay si fool xun. muuqaalkani ayaan ku soo koobayaa ninkani nolosha cabsida ugu noolaa, sidoo kalena aan lahayn ajar uu xisaabsaday, bal inuu caayo suubanaheeni Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. haddii ay tahay markii ugu horreysay janaalkani ku soo gaaro bartan waa xogta qarsoon. magacaygu waa Yaxye Maxamuud Maxamed. daawade waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkani share garayso. hagaag sawir qaado u dhashay Sweden oo sameeyay sawir gacmeed oo ku sheegay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa ku geeriyooday shil baabuur oo aad u xun. Lars Vilks ayaa lagu soo waramayaa in marka shirku uu dhacay uu la socday gaari ay leeyihiin booliska, kaas oo ku dhacay baabuur weyn oo xamuul ah meel u dhow magaalada Markaryd ee koonfurta Sweden. baariyaashu waxay sheegeen in shilka ay ku dhinteen laba sargaal oo boolis ah oo ilaalinayay ninkan. Vilks oo ahaa 75 sano jir waxaa si joogto ah u ilaalinayay booliska kadib markii ay soo gaareen hanjabaadyo in la dilayo ka gadaal markii sawir uu ka sameeyay sawir gacmeedkaas oo la daawacay 2007 taas oo ay arkeen muslimiin badan inay tahay dambi meel ka dhac in sawir toos ah laga sameeyo Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. sidoo kale tani waxay ku soo beegatay markii farshaxaniiste kale u dhashay Denmark oo isna sawiray wax ka sheegay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. waa cajiib, Ilaahay nacladiisa hadeen ku dhacday. hanjabaadyo badan ayuu ninkani la kulmay. Vilks waxaa si weyn u hadlaysay warbaahinta caalamka kadib sanadkii 2007 oo uu sameeyay sawir gacmeedka carada badan ka dhigay caalamka, kaas oo horseeday in ra'iisul wasaarihi Fredrik Reinfeldt uu la kulmo safiiro ka socda 22 dal oo muslim ah si loo dejiyo xiisada ka dhalatay sawir gacmeedka uu sameeyay ninkaas foosha xun. wixii intaas ka dambeeyay waxaa si joogto ah u waardiyeynaya booliska Sweden. ugu yaraan 2 askar oo ka tirsan booliska oo weesan ayaa si joogto ah u ilaalinayay. xilligaas ururka Al-Qaacida ee Ciraaq waxay madaxiisa dul dhigeen $100,000 ciddii dishay ninkaas. sanadkii 2015 Vilks wuxuu ka qayb galay dood lagu hadlayo xorriyatul qowlka goobtaas oo lala beegsaday weeraro qoryo loo adeegsado oo ka dhacay Copenhagen. wuxuu sheegay in bartilmaameedku isagu ahaa kaasoo galaaftay nolosha qof agaasimo ka ah filimkaas. booliska Sweden ayaa waxay sheegeen in aysan jirin wax hanjabaadyo hor leh oo ka dhan ahaa ninka shirka ku geeriyooday. dab ayaa qabsaday gaarigii u soo gurmaday kadib markii shilku dhacay. waxaa dab qabsaday tiro baabuur oo u soo gurmaday ninka shilka galay. darawalkii baabuurka xamuulka ayaa loo qaaday cusbitaal, halkaas oo booliska su'aalo ay ku weydiinayaan. bayaan ka soo baxay booliska waxaa lagu sheegay in weli aysan kala caddayn sababta ka dambaysa shilkan. dhacdadan waa la baarayaa maadaama ay ku dhinteen 2 boolis ah, waxaana baaritaanada loo xilsaaray koox ka tirsan xafiiska dacwadoogaha ayuu yiri sargaal ka tirsan booliska oo la hadlay AFP. qof goobjooga ayaa warbaahinta Aftenbild u sheegay in baabuurtu ku jira Lars Vilks uu lumiyay kontaroolka isla markaana uu ka dhacay baabuurka xamuulka. Steven Zantios oo ah madaxa baaritaanada koonfurta Suudaan ayaa shirjir ay ku sheegay in saraakiisha isku dayeen sidii ay u ogaan lahaayeen sababta ka dambaysa shilka. daawada arinta la yaab kale Ilaahay awoodiisa uu bini'aadamku ku tusay waxay tahay ninkan marka shilka uu galay kadib gawaaridii soo gurman lahayd dab qabsadeen. cajiib, Ilaahu diintaada nagu sug. waxay ahayd waxa ugu badan ee la hadal hayo in ninkan caayo suubanaheena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee markii shilkan foosha xun uu ka dhacay gaarigiisa dab uu qabsaday. sidoo kalena gaariga kale ee u soo gurman lahaa ama gawaarida banaanka soo istaagtay si ay ugu gurmadaan dab ay qabsadeen. warbaahinta Sweden waxay si weyn u hadal hayaan dhacdada kale oo ah in gawaarida u soo gurmanaysa ay gubteen, balse taas waa sheekada ugu weyn oo Ilaahay uu bini'aadamka ku tusayo in qof walba oo u gafa diinteena suuban ee Islaamka in isagana maalin uu ka aari doono. adduunka waa lagu cadaabay, sidoo kalena aakhira ayaa lagu cadaabi doonaa ninkan foosha xun ee u gafay nabigeena suuban nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee Maxamedul Amiin. balse waayadii u dambeeyay waxaa taagneed in dadka sawir gacmeedyada ka sameynaya nabigeena midba midka kale uu si fool xun u dhimanayay. waxaa la xusuustaa in sanado ka hor wadanka Faransiiska ay ka taagneed sheekada Charlie Hebdo,
14 qof oo dalka Faransiiska ayaa weerar lagu hoobtay oo lagu qaaday majalada Charlie Hebdo 5 sano iyo dheeraad ka hor waa la xasuustay wixii ka dhacay. Wargeyskaas wuxuu sameeyay sawir gacmeed uu ku sheegay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Eedeysanayaasha ayaa maxkamad la soo taagay waxaana loo haystay in weerarkaas ay ka dambeeyaan, balse maxaa kale oo dhacay waxay ahayd in 14 qof ay ku eedeysan yihiin inay gacan ka geysteen diyaarintii qorsheynta dilalkaas. Qofkii ugu weynaa ee la dilay waxa uu ahaa qofka sawirka dhacay. bishii January ee sanadkii 2015 laba nin oo dabley muslimiin Faransiis oo walaalaha lagu magacaabo Shariif iyo Saciid Kouacha waxay xoog ku galeen xafiiska Charlie Hebdo ku yaal Rawa Negola Apart kadibna tacsiirada ay ku fureen shaqaalihii taftirihii majalada waagaas Stephen Charbonneau oo ku magac dheeraa Charpe ayaa kamid ah 4 qof ee caanka ee farshaxanka sawir gacmeedka ee dhamaantood ku jiray kuwaas oo la dilay. Dableyda waxba kama dambaysiin dilka. Ciidamada nabadgelyada muddo isbaaxsanayeen kadib dadkii ay isugu laayeen waxaa kamid ah 8 wariye, 2 askari oo boolis ah, washman iyo sidoo kale qof xafiiska soo booqday. majalada xagjirka ah ee waxa Charlie Hebdo waxay ahayd inay dhalisho maamulka iyo diinta waxayna muddo dheer abuuri jirtay muran. sawir gacmeed laga sameeyay nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu sababay in loo diro Charpe fariimahan jawaab dil ah inkastoo ilaalada booliska 24 saac la siiyay intaan la dilin. waxaana sidoo kale lagu qaaday weerar xafiiskiisa majalada waxay sidoo kale loo arkayay inay ilaas u tahay xuriyadda hadalka maadaama dad badan oo difaacay ay adeegsadeen hashtag-ga Justice Charlie si ay u difaacaan. Charpe wuxuu u difaacay sawir gacmeedyada laga sameeyay suubaneen oo ku sheegay inay istaawiyeen xuriyadda hadalka kula yaabi maayo muslimiinta inay ku qoslaan sawirada ayuu u sheegay wakaalada wararka AFP naclatullaahi calayk. salaadii majaladu waxa ay daawacday sawir gacmeedyadaas balse muddo kadib waa lagu abaalmariyay wax uu sameeyo oo ahayd wax gaf ku ah diinteena. waxaana taasi ay keentay in ninkani uu si xun u dhinto isna. labadii nin ee ugu weyneed ee nabigeena Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee sawir gacmeedka ka sameeyay waxay ku dhinteen qaab xun. daawadayaal muuqaalkeeni maanta waa naga intaas nabadgelyo.